wafdigan oo iskugu jiray wasiiro xildhibaano salaadiin waxgarad cuqaal iyo sidoo kale mas'uuliyiin heer degmo ah ayaa waxa hogaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka Soomaaliya. garoonka diyaaradaha Cadaado waxaa ku soo dhaweeyay maamulka degmada Cadaado xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha labada gole ee maamulka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa xubnahan ku soo dhaweeyay Cadaado. mahadle maanta waxa sharaf weyn oo ah inaanu halkan ku soo dhaweynay wafdi heer sare oo ka kooban wasiiro ka socda dawladda federaalka, xildhibaano ka socda dawladda federaalka, xildhibaano ka socda dawlad goboleedka Galmudug, siyaasiyiin hore, madaxweynayaal hore, nabadoono, dhalinyaro يا أخويانا أنت بسكوت جرا أيام ما أنت لهم كسر ويني وحنا وفتي وهجامنا وزير أحمد عبد الكاري وزير غرغر وزير وزير الدولة وزارة هؤلاء جودة دبلسكا عبد الرحمن محمد حسين أدواء وزير كوريا وزارة أرمها جودها هذا حلبان كترسن برلمان كأقل قوس وحى وحمناه وفد جاوشة جاي إن مالين أنه يكسر الريان حلقة قلمدوجنا حلقة وجوجان وزير سودو حاليا dhulka sii joognay wax badan kama aanan soo horeyn hadda waan ku mahadsantahay adiga iyo xildhibaanadii iyo waxgalkii kalood maantay isu soo raacdeen inaan wada tashanoon talada isku wada biirino adiga iyo xildhibaanada kale ee reer Galmudug iyo inta reer Galmudug haynba Galmudug maanta talay u baahantay iyo tusaale marka in loo tala badiyo oo loo arrin badiyo oo waxgaradkeedii la isugu keeno oo magaalooyinkeedii is wareystaan intaasaan idinla sugaynay waa timaadeen aan isku wada talo iyo ra'yi darsano hadda waxay ila tahay waqti reer Galmudug muddo fiican bay hadda soo jiray teeramkii koowaad oo 4 sano shaqo badan baa la soo qabtay argagtan badanna waa jiray laakiin waxaan rabnaa inaan hal arrin aad u highlight gareyno dadkan waa isma hurto waa walaalo waa tol waa deegaan inay waxay wada ogol yihiin dhistaan ku soo baaqaynaa أحمد عبد الكاري وزير الدولة وزارة هولها جود يدب ديسك الدولة فدرالك Soomaaliya waxa uu sheegay xalu helida xaaladda siyaasadeed ee Galmudug inay halkan u yimaadeen la tashiyana ay la sameyn doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka ehelka u ah Galmudug waxaan idinkugu nimid socodkeegu ahaa sidii hore loo sheegay inaan idin kala qayb qaadano marxaladda cusub oo ay gashay Galmudug wada tashigeeda toosinteeda inay ku dhamaato insha Allah meel tawfiiq iyo tala ah meel isla wada ogol ah inay wax Soomaali uga dayato Soomaali anfaca reer Galmudug anfaca tashiga iyo taladu ay noogu dhamaato insha Allah tanazul iyo waxalis iyo wax toosinna aysan marna aan dhinac looga bixin waana ku kalsoonahay inay maantay Galmudug runtii waxgalkeedii iyo mas'uuliyiinteedii iyo dadkii maanta u tanasuli lahaa hagaaji lahaa inay ku sugan yihiin kuwa safar ku yimid iyo kuwa hore u joogayba sidoo kale waxaa ku sugan Galmudug jooga ra'iisul wasaarihii xukuumadda federaalka Soomaaliya oo runtii aan hubno inuu gacanta ku hayo xalka iyo toosinta arrimaha Galmudug waxa sidoo kale jooga mas'uuliyiintii Galmudug oo aan hubno ayagana inay u taagan yihiin ayna muujiyeen runtii hoggaan iyo tarasul iyo mas'uuliyad aad u qiimo badan xaaladda siyaasadeed ee Galmudug ayaa isbedel xoogan muujinaysa saacadba saacada ka dambaysa madaxweyne Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa muddo 18 bilood kadib markii ugu horeysay dib ugu soo laabtay madaxtooyada Cadaado. Saadaqlaka warbaahinta SBC magaalada Cadaado.